Lamaane Soomaaliyeed oo dhowaan ku aqalgalay magaalada Muqdisho ayaa si aad ah uga cabanaya haybsooc ballaaran oo ay kala kulmayaan bulshada Soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan. Mid ka mid ah lamaanahan waxa uu sheegay in ay wax laga xumaado tahay in dadka ay doonayaan in imika ay kala geeyaan sabab la xiriiro takoor dhanka qabiilka. Waxa uu sheegay in bulshada aysan eegin gabdhaha Soomaaliyeed ee dadka ajaanibta guursanaya, balse kaliya ay faquuqayaan qoomiyadda beesha Jareerweyne ee ku nool magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda. Xaaska ninkan oo iyadu kasoo jeeda mid ka mid ah beelaha ugu xoogan magaalada Muqdisho waxay sheegtay inay aada ugu faraxsantahay inay guursato saygeeda, waxayna ka codsatay bulshada inay ka fogaadaan inay farageliyaan arrimaha guurkeeda ku saabsan. Cabdishire xilli uu arrintan ka warbixinayay waxa uu ummadda kula dardaarmay in ay ka fogaadaan qabiil iyo waxa la halmaalo. waxaana uu leeyahay qabiilku sida alle subxaana wa tacaala qur-aankiisa uu ku tilmaamay waa litacaarafu, waa inaynu isku aqoonsano oo aynu isku garanno. qabiil waxba ma taraya, ma jiro qabiil qabiil kale ka sarreeya, ma jiro qabiil qabiil kale ka laandheersan. waxaan ummadda Soomaaliyeed ka codsan lahaa buu yidhi in ay ka fogaadaan arrin walba oo burburin karta gurigeyga imika aan yagleelay ee ugubka ah. waxaanu nahay lamaano Soomaaliyeed oo kusoo biiray mid ka mid qoysaska Soomaaliyeed ee dunida dacaladeeda ku sugan. waxaan doonaynaa ummadda inay noo duceeyaan oo ay nagu garab istaagaan khayrka iyo wanaagga iyo go-aanka aan qaadanay. sidoo kale wuxuu leeyahay wallaahi marka aad aragto ummadda dhexdeeda waxyaabaha ay faafinayaan buu yidhi waa arrin aada u foolxun. dunidan casriga aynu joogno waa wax laga ilbaxo buu leeyahay, maadaama gabdhaheena Soomaaliyeed waayadan dambe ay yihiin kuwo dhaqamadoodu aada markaasi u sii siqayo oo aada moodo in ay waxoogaa sii yara garabsanayaan dhaqamada reer galbeedka. lamaanahan Soomaaliyeed waxay cod dheer ku sheegeen inay wax iska caadi tahay in noloshooda loo daayo, maadaama aysan wax weyn aynan ahayn ee qabiilka ay kasoo jeedaan. marba haddii ay isku faraxsan yihiin oo ay iyagu go-aan ku gaareen ay isdoortaan oo ay iscalfadeen, ma jirto arrin loo takooro oo loo cunsuriyeeyo siday hadalka u dhigeen. haddaba xasan toob oo isaguna garwadeyn ka ah guurka lamaanahan waxa uu xusay in run ahaantii ay tahay arrin markaasi bulshada dhexdeeda aada ugu soo badanayso marka adeegto waayadan dambe cunsuriyeenta lamaanaha Soomaaliyeed oo qabiiladooda loo kala cunsuriyeynayo. waxa uu leeyahay xasan toob guurkan waxaan ka qaatay kaalin aada u weyn. waxaan ka mid ah dadkii dhidibada u taagay gurigan Soomaaliyeed ee wanaagga iyo khayrka faraha badan aynu u rajeynayno. marka waxaan leeyahay way jiraan hadallo badan oo ina soo gaaray oo baraha bulshada ka socdo. wuxuu leeyahay xasan toob waxaa jira dad badan oo wax iga weydiiyay qabiilka ay kasoo jeedo inantan lagu magacaabo Maslaxa oo isagu guursaday Cabdishire. taasina ma habboona buu leeyahay, ma jirto sabab loo daneeyo qabiil qof kale oo qabiilkiisa, mana jirto waxay ummaddu raadinayaan faa'iido ballaaran oo ay keeni karayso. marba haddii lamaanahan ay iscalmadeen, waalidiintooda ay raalli isaga yihiin oo maalin cad ay waalidkoodu isku dareen oo ay go-aan ku gaareen in ay markaasi isguursadaan, ma jirto sabab looga